السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين قالي كسو هذا الشانل كان فضل هدي أنا عصب تهي سبسكرايب إنه ده هرنو الجوكتن لايك شيرت وحقينا رمضان مبارك إن الله سبحانه وتعالى هنقول ما رمضان كاسي وخير قبطة يا أنو كفائدة سنة أعماشا إن الله هنا نقدم بدافو بشان بركيسن رمضان waxaa sii gabagaba tobankii ugu horeeyay waa gabagaboway insha Allah tobankii dhexe ayaa la galay Allah subhanahu wa ta'ala ha noogu dambi dhaafo inta dhimata Allah ha u naxariisto inta kalena Allah ha waafajiyo inay ku cibaadaystaan bishaani waxaan ka hadli doonaa maanta hooyadu nuujinaysa iyo bisha Ramadaan maxay heeto la soo gudboonaan karaa sidaan wada ogsoonahay hooyadu nuujinayso waa laba weeye hooyo markii umushay oo bishii Ramadaan ku soo gashay iyo hooyo ilmaheedu u weyn yihiin labadaas ayaan u kala qaadi doonaa marka hooyada umushay bishii Ramadaan ilmaheedu yar yahay 2 bil ka yar yahay ama uu bariyo jiraba waxa inta badan hotortaas waa iska afuran tahaba oo si kalena way u afuran tahay inta fahmi karto dumarku way fahmayaan marka maxay ahayd ayada waaba free weeye wixii bil ka yarba umushi isaga jirtaa wali waxa weeye umushi kama bixin beebigoodu aad buu u yar yahay caana lama siin karo marka hooyadaasi waxa u furan inay afurto si ay cun ilmaheeda u nuujiso haday hooyadu soomto malaha adiga hadii xitaa bish umushi ka baxday oo soonka lagu leeyahay ay sooman tahay beebigooduna uu adiga 2 bil ama waxyaabahaas u jiro waxaa la soo gudboonaan kara beebigeeda caafimaad darro maxaa yeelay maalinta dhan waad sooman tahay beebigana waad nuujinaysaa marka adigoo baahan hadaa beebigaada nuujisana wuxuu ka nuugayaa waa qaras ilaan qof gaajoon waxba ma haysay waa qarasti wuxuu ka nuugayo marka mana wanaagsana markaas in la siiyo beebigaas aadka u yar caana inaa siiso naaska hooyada wuxuu ka difaacaa beebiga cudurro fara badan wuxuu u yahay difaac ayuu u yahay insha Allah ta'ala cunugaada hadaad nuujisana caafimaadkiisa wuu hagaagayaa marka hooyada ilmaheedu adiga 2 bil 3 bil ka yar yihiin oo kale way iska afuri kartaa haday soomi kartana way soomi kartaa beebigaas caana siiso hooyooyinka isku mid ma hooyooyin waxa jiro fast caana ku bilaabay ilmahooda iyo hooyooyin naas kaliisi ilaa 6 bilood marka hooyooyinka naas kaliisi ilaa 6 bilood beebigooda haduu 2 bil ama 3 bil ka yar yahay ma soomi karaan iska afurayaan marka inta badan sidaas ayaa lagu taliyaa waayo hooyo gaajaysan waxba ma nuujin karto qaras ayuu ka nuugayaa ilmaha haduu cunugaadu ama ilmahaadu 6 bilood ka weyn yahay caano waad siin kartaa raashinaad siin kartaa marka 6 biloodba haduu ku jiro ilmahaada raashinka ayaa siisan kartaa loogu talagalay hooyadaas oo kalena soonkeeda waxba kuma iimaanayo way soomi kartaa beebigeeda haduu 6 bilood ka weyn yahay aad ayeen ugu fududahay inay cuntooyin yar yar oo fudud u sameeyso laakiin hooyada beebigeedu uu ka yar yahay 3 bilood waxa u wanaagsan inayna soomin waayo beebigaada wuxuu ku imaan karaa calool xanuun ayaa ku imaan karto ooyin ayaa ku imaan karto waayo waxna ma nuugayo oo caana ma lahan naaski caano fara badan ma laha oo adigana waa soomanta wax ma caboosid ilmihiina waxaad sagridaysaa cudur marka Allah ayaa ku fasaxay iska afuro teeda kalena waa iska soon qaleen kartaa ilmahaada haduu 2 bil ka yar yahay ama 3 bil uu ka yar yahay dadka loo cudur daaray hooyinka nuujinaya ku jiraan insha Allah ta'ala ka faa'iideys wanaagsan Ramadaan mubaarak.